degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa ku sugan tiro qoysas barakacyaal ah qaarkoodna waxaa haysto xaalad nololeed xirooyinka ay ku sugan yihiin waxaa booqasho ku tagay saraakiil caafimaad oo ka socota hay'adda qaramada midoobe ee UNICEF xubno ka tirsan maamulka degmada saraakiisha ciidanka iyo mas'uuliyiinta UNICEF waxa ay kormeereen xarumaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qoysas barakacyaal ah maadaama qoysaskaasi barakacyaasha ah duruufaha haysta ay qayb ka tahay waxbarasho la'aan haysata caruurtooda saraakiisha caafimaadka ee ka socotay UNICEF waxa ay booqdeen isbitaalka dhexe ee degmada iyadoona sidoo kale ay booqdeen xarumaha caafimaadka oo ay gacanta ku hayso hay'adda Hirda ujeedka safarkooda xubnahan ka socday UNICEF ee yimaaday degmada Baardheere waxa warbaahinta ugu warbixiyay Saacid Abshir Cartan oo kamid ah mas'uuliyiinta degmada waxa maanta soo gaaray wafdi ka socda UNICEF madaxdeedii sarsareeto waxaan ku soo dhaweynay degmada Baardheere waxay ka socdeen biyari ku timid wabiga iyo muxuu ahaa biyihii oo xogaa wasaq noqday ayagoo tuulooyinka qaar ka mid ah lagu arkay shuban biyood saraakiisha waxay tageen qaxootigii xabal caday ayagoo u koorgalay masqulaha qaxootiga ay leeyihiin iskuulada wax lagu barto haamaha biyaha laga cabo waxay kaloo tageen MCH-ki Hirda ay lahayd qaybaheedii kala duwanaa muxuu ahaa MCH-ka oo ciyaalka nutritionka lagu siiyo muxuu ahaa nafaqo darrada lagu qoodiyo muxuu ahaa hooyada uureyda lagu daaweeyo ayadana way soo mareen waxay kaloo tageen isbitaalka weyn ee degmada Baardheere qaybihiisa kala duwan ka bacdina waxay imaadeen xafiiskii degmada aad iyo aad ayay noogu warameen oo minaha waxay dhaheen waxqabad fiican ayaan ka qabanaynaa awalna horay waxyaabo badan bay ka qabteen degmada Baardheere oo ay ka mid tahay muxuu ahaa daaweynta dadka muxuu ahaa hooyooyinka iyo dhalaanka iyo waxbarashada iyo biyaha waxyaabahaas oo dhan ayay wax ka qabteen hadeerna waxaan ka filaynaa insha Allah biidnillaahi kariim inay dib hadana wax kale oo minaha ay ka sii qabtaan wayna naga ballan qaadeen Maxamed Cabdi Ali Alfa dalka TV Baardheere.